maalinta aakhira markii la gaaro ilaahay wuu naadinayaa ilaahay wuxuu leeyahay ayna jaari diriskayga aawe ilaaha diris weydiisanayo alikhwa ayna jaari malaa'igta inta yaabaanay waxay leeyihiin ilaahayow yaa haboon in aad diris kula noqdo man yanbaqi yaa haboon allow inuu aad qof diris kula noqdo markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala kuwa masaajidadayda dhisay ka shaqeeyay kuwaas haboon ilaahay inay diris noqdaan tani waa fariin ku socota bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay ka joogaan daafaha caalamka muuqaalkan waa masjidul bilaal ee magaalada Jowhar masaajidkan ayaa noqday mid qadiimi ah jamiicada masaajidka bilaal ayaa go'aansatay in dib u dhis xoogan lagu sameeyo masjidkan waxa goor dhow la filayaa in la bilaabo dhismaha masjidul bilaal ee ku yaala xaafada Baryare ee magaalada Jowhar gobolka Shabeellaha Dhexe culimada ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa ku baaqay in laga qayb qaato dhismaha masaajidka bilaal Baryare ee magaalada Jowhar dadka muxsiniinta ee ku dhaqan daafaha caalamka ee wax haysto ayaa laga codsaday inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidka maadaama dadka Soomaaliyeed ay jecel yihiin wanaaga laguna bartay inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidada ismihiisa rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam man bana lillahi baytan bana Allahu lahu mithlahu fil janna qofka ilaahay dartii guri u dhisa ilaahay guri janno oo ka la mid ah ayuu jannada ugu dhisaa aad bay u qiimo badan tahay marka in guriga ilaahay la dhiso laguna dadaalo no ta'miirka masaajida waa labo ta'miir hissi ah ee ta'miir macnawi ah midka hissiga ahi waa midka hadda loo fadhiyo maanta oo ah in masjidkan la dhiso iyo masaajida kalaba haday tahay dhulkiisa oo la waqfo haday tahay masjidka oo la dhiso haday tahay in la dayactiro inta wata waa ta'miir masjid ama ta'miirka ha ahaado hissi oo si hissi ah ha loo camiro masjidka ama si macnawi ha ahaado labadaba waxay u baahan yihiin iimaan yaa masjid dhisi kara qof iimaan la yaa camiri kara qof iimaan la ee qofka iimaanka lahayn masaajid ma dhisi karo oo ma camiri karo si hissi ana uma dhisi karo oo mana iimaan karo waxa rabaa marka masaajid in la camiro haday tahay dhismaheedii si macnawi ana loo camiro macaanida masaajidda loo camiro salaadii lagu dukado quraankii lagu akhriyo dhikriga ilaahay lagu badiyo in guriga ilaahay xaq ma ahan in oo gurihayna ka liito ina anaga aan degana guri qurux badan oo aad u dhalaalayo aad u fiican guriga ilaahayna oo muxuu ah oo khariban yahay aad bay u dhib badan tahay marka xaarana masaajid kor u qaado dhisno man bana masjidan bana Allahu mithluhu fil jannati haddii aad dhisto masjid ama aad ka qayb qaadato Allah subhanahu wa ta'ala jannada ayuu wuxuu kaaga dhisaa asagoo kale marka inaad qasri jannada ku hesho wax kooban ma ah mana laguga adoonsanin inaad wada dhiibto inta aad ka qaadan karto ay tabaru ku dhigto inaad ka qaadataa laga rabaa nin walba oo naga mida waxa kaloo na saaran adooma allow in inteenaan meeshaan isugu timid iyo inta maqashaa codkeena masjidkan ilaahay ee loo istaagay dhismihiisa inay sii gaarsiiyaan ummadda waxa kaloo ugu badbaadaynaa khusraanka wal asr innal insana la fi khusrin illa alladhina aamanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr haqqi sabarka usu dardaarankooda xaqa ka weyn in masaajid alla la dhiso la soo dardaarmi lahaay muxuu yahay jannana lagu gaarayo marka xaqaas waa inaan walaalahan u dardaaranna oo aan gaarsiino annaga wixii aan maxaan ku iraadaa dadaal oo ku bixin karna aan ku bixino masaajidka loo istaago xoog ee maal ee maskax ee wax walba oo aan heli karna aan u istaagno insha Allah saxaabiga oo la dardaarmay nabigu wuxuu ku yiri inaad ka tagtid dhaxaltooyadaada oo faqiir ah waxa ka fiican ayuko waxaast inaad ka tagtaa ka fiican marka ma loo baahna xoolihiina inaad wada bixisid inaad wada haysidna looma baahna marka waxa loo baahan yahay sidoo nabiga nagu taliyay inaan yeelno marka masaajidda waxay ka mid yihiin meelaha oo ku socda camalka waxa ah maxay oo si socdoono marka dhimatid ka bacdi waxa ku sii shaqeynaya ka mid tahay waladun salih ilmun yantafi qofka dhisay cilmi lagu intifaacayo hadaad xer wax bartay oo dad cilmiga ka qaateen
cilmigaas intoo dad wax sii baraya dadka wax bartay intay wax sii barayaan adigana waa kuu socdaa masaajid haddaad dhistid ama aad wax gashatid intuu masaajidkaas dhisan yahay adigana waa kuu socdaa ilaahay deeqsiwa waxaad intaan ilagan ku dhahaya alxasanatu bicashri amhaaliha toban laab waa ilaa 700 dicfin ilaa 700 laab ayay noqonaysaa marka waxaa loo baahan yahay anoon idinku dheeraynin maxaa ahayd in laga qayb qaato dhismaha masaajidka haddiiba ay macquul tahay inaad ka qayb qaadanayso dhismaha masaajidkan fadlan kala xiriir taleefoonada iyo akoonnada shaashada kaaga muuqda waa muhiim inaad ka qayb qaadato dhismaha masjidul bilaal ee jowhar oo loo dhisi doono qaabka idin muuqda waxaadna ogaataa wax walbo wax ku bixisid inuu ugu khayr badan yahay beedka allah Saadakhal Ismaan dalka TV jowhar